بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada casharadeen imtixaanaha ahaa qaybtiisii labaad oo aan uga hadlaynay luqadda SQL qaybtan waxaan uga hadli doonaa sidee ugu install gareeyaa Microsoft SQL Server computerkeyga. Microsoft SQL Server qaabka loo install gareynayo badanaa ardada way ku wareertaa oo waxay la kulmaan caqabado fara badan annagana hore waa ugu soo wareernay. marka stepska soo socda haddii aad si simple aad u raacdo way kuu fududaanaysaa inaad ku install gareysato computerkaaga. videoganna wuxuu kuu soo koobayaa step by step processkii aad u mari lahayd inaad ku install gareysid computerkaaga. stepskan marka waxaan u isticmaalaynaa SQL Server Express 2014 waana la mid kuwii ka horreeyay iyo kuwii ka dambeeyay badanaa waana isku mid. Microsoft SQL Server 2014 Express muxuu yahay oo maxaan u dooranay Express edition badan ayuu leeyahay, professional uu leeyahay, kuwo kale ayuu leeyahay. qaybahaas marka waa business purpose ayaa loogu talagalay, waa kuwo lacag laga bixiyo. anaga qaybtaan aan isticmaalayna waa mid free ah, feature badan ayaa ka buuxo, waxaana loogu talagalay dadka wax baranayo luqadaha database waxyaalahaas iyo dadka badanaa wax develop gareynaya inay isticmaalaan. luqadan hadda aan install garey rabno 2014 Expresska wuxuu ku install gareysmi karaa Windows kasta, Windows 10, Windows 8, Windows 7. stepska loo marayo badanaa marka waa isku mid editionskooda. markaad Windows isticmaalaysid step koowaad waa inaad soo download gareysataa SQL Server 2014 Express Edition. waa inaad horta sida app soo download gareysato. waxaad kasoo download gareysan kartaa microsoft.com ayada ayaa soo saartay oo soo develop gareysay. kan ayaa soo download gareysan kartaa. Express Edition waa free. markaad soo download gareysatid installationka iyo qaabkii loo mari lahaa ayaan hadda fiiri rabnaa. step 2 waxaad extraction ku sameynaysaa fileka soo download gareysay. markaad soo download gareysid kadib waxaad double click ku siinaysaa oo laba goor aad gujinaysaa fileka oo .exe fileka waa executable fileka. filekaas marka aad ku dhufatid shaashad sidan oo kale ayaa kusoo bixi doonto. qaybtan tabka waxaad tegaysaa installation, waxaad sii tegaysaa oo click ku siinaysaa new SQL Server standalone installation. kadib wuxuu ku keeni doonaa inta waa inaad I accept the license terms aad jeega saartaa, haddii kale buttonkan next enabledkiisu false ayuu ku noqonayaa oo ma isticmaali doontid. haddii aad jeega saartid buttonkan wuu soo muuqanayaa, sidaas ayaa ku isticmaalaysaa oo next ku leedahay. step 4 wuxuu ku keenayaa meeshan waa inaad badanaa waxaa cillad keeno antivirus programmeska kugu jiro oo diidayo portiska oo SQL serverkan isticmaali lahaa oo enable oo ka dhiganayo in la furo ayuu diidayaa badanaa for security purpose. marka waad antiviruskaas waxaad iska leedahay disable. marka ku shubid kadib ayaad enable soo dhahanaysaa oo warning meeshan ayaa looga jeedaa Microsoft Windows firewallkaaga ayaa warning ka jira. stepka shanaad waa feature selection. stepkan badanaa defaultgiisa ayaa lagu daayaa oo featureska aad dooran lahayd oo dhan asaga kuu doorayo muhiimka ah. intan wuxuu kugu sheegayaa drivekaaga ama cdaada oo ah hadiskaaga qaybta oo ku install garey rabo inta ka banaan oo loo baahan yahay required spaceka loo baahan yahay oo inta kugu sheegi doonaa. intaasaa loo baahan yahay, intaanna waa ka banaan yahay so waa ku shuba kartaa. intan wuxuu kugu sheegayaa bathkii oo dhigi lahaa hadhoodii markii uu ku install gareeyo kadib. step 6 waxaa waaye markii aad install gareynaysid waxaad requirementska waxaa ka mid ah in uu kugu install gareysan yahay computerkaagana uu ku jiro Microsoft.NET Framework. haddiisan kugu jirin marka errorkan ayaa kusoo bixi doono oo ku leeyahay kuguma jiro computerkaaga. waxaad sameynaysaa marka si aad cilladan u xaliso, badanaa cilladan ayaa dadka wareeriso. waxaad tegaysaa control panel
programs aad kasii tegaysaa qaybta programs and features ku dhufanee turn Windows features on or off ayaad click siinaysaa. markaad click siiso qaybtan ayuu keenayaa. marka meeshaan labadan meel ayaad jeega saaranaysaa and then qaybtan ayuu keenayaa formkan download files from Windows update ayaad click ku siinaysaa and then uu ku install gareynayaa. computerkaadana restart inuu ku weydiiyo ayaa badanaa laga yaabaa, waana recommended si macnaha uu featureskii uu usoo rangareeyo. then markaad soo restart gareysid inta ayuu keenayaa oo Microsoft.NET frameworkgaagi waad kusoo install gareysatay, waana statuskeeda waa passed. next markaad aad inta ayuu keenayaa oo inaad serverkaagii instancegii inaad configuration ku sameysid waa qayb muhiim ah. badanaa marka Express markaa isticmaalaysid SQL Express inaad sii dhaaftid ayaa fiican. haddaad rabtid wax kale oo ku qoran kartaa. configurationkan qaybtan badanaa by default ayaa looga tagaa oo laguma ciyaaro oo badanaa problems ayaa ka imaan karo. SQL database server engine-kaaga iyo SQL server browser-kaaga badanaa by default kuu setup gareynayo. qaybta 8aad waa database engine configuration. qaybtan waa qayb aad iyo aad muhiim ah. waa qaybtii database-kaaga markii lasoo galo userska access gareyn lahaa iyo qaabka u access gareyn lahaayeen. laba qaab loo isticmaalaa, Windows mode iyo mixed mode. so Windows mode-ku waa qaybtan userka kaliya inaad authentication ku sameysid. mixed mode-kuna waxa waa user authentication plus username iyo password inaad isugu dartid. waana arkaynaa labada nooc sida kala yihiin. waa kana Windows authentication mode la isticmaashid userka inta kusoo daray kaliya oo username password lagama baahno. haddii aad marka mixed mode isticmaalaysid badanaa si database-ka secure kugu ahaado waxaa la isticmaalaysaa passwordka inta gelinaya waa confirm gareynaya. then next ayaan leenahay inta ayuuna geenayaa install and configure. so next markaan ninaano wuxuu bilaabayaa installation-keeni dhex ayuu maroyaa. marka uu dhameeyo marka waxaa noo soo baxaysa inta haddii cilad ay jirto oo kale asaga ay ku sheegayo failed ayuu ku leeyahay meelaha qaar. hadda succeeded ayay noo yihiin ayaga dhan. markaad soo kici sidoo kale wuxuu ku weydiinaa inaad serverkaagii aad ku xiranto. marka haddaad sidaan soo aragnay Windows authentication-ka Windows mode iyo wuxuu kala ahaa iyo mixed mode. Windows mode haddaad isticmaalaysid kaliya waxaa kaaga filan username-kii inaad meeshaas ka isticmaashid. haddii aad isticmaalaysid oo kale waxaa la lahaa mixed mode authentication waa inaad passwordkii aad login user iyo password ayuu ku weydiinayaa si aad u gashid. xogaa yar waqti ayay qaadanaysaa laakiin waa installation process-ku waa clear. stebyada soo marna marka haddii aad dib u raacdid oo step by step aad u dabaaqdid wax cilada ma ku qabsanayo insha Allah. haddii aan fiirno marka SQL-ka anaga waa nagu install gareysan yahay. marka hore haddii marka aad soo kicisid wuxuu ku weydiinaya inaad connect aad ahayd. hadda ma connect gareysno. marka anaga hadda waxaan isticmaalanaa Windows authentication laakiin SQL server authentication waa mixed mode username iyo password ayuu ku weydiinayaa. hadda kana si bilow ahaan usii isticmaalaynaa connect markaad tiraahdo wuxuu keeni doonaa databaseskaagii iyo waxyaalihii ku abuurnaa iyo dhan inuu kusoo saaro. marka videoga dambena waxaan uga hadli doonaa soo socda insha Allah sidaan u set up gareysan environment-gan, sidee database loo abuuraa, sidee loo drop gareeyaa, waxyaalahaas dhan casharka soo socda aan u hadli doonaa insha Allah. waana mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.